السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أما بعد. دعوة إسلامك آدي بدون دافعه وقفافتي. دينت إسلامكم آدي أي وقفافتي لكن الصومالي وحين قبتي معاهدي وحين قبتي مدارس القرآن كلا برني أرنكاسنا وأرن على لو محنقه ربنا إنه من نستي هذا ما دام دعوتي فربضتي معاهدي فربضتي أرضي دعوة قادسنا أي فربضتي دين تبرتي محل وقبها هي قفك الداعية. الحمد لله الكريم بفضله والشكر حمدا خالق الإنسان. كوين كلو قبها هي قفك الداعية وحاكمها قف أخلاقد إيا أنشح له أوردرسون وإنه هذا قفك الداعية. qofka daaciga waxa looga baahan yahay inuu akhlaaqad ku sifaysan yahay markuu dacwada faafinayo maanta waxaanu aragnaa dhalinyaro aad iyo aad u fara badan raba inay dacwada faafiyaan laakiin dhaqankii looga baahnaa dacwadu uu ka khaldan yahay waxaanu aragnaa dad raba inay dadka khayrka u sheegaan laakiin qaabku ugu sheegaya aad iyo aad u khaldan yahay waxa looga baahan yahay daaciga inuu ku sifaysnaado cilmi waa inuu cilmi lahaado waana muhiim cilmigu waana maraatibta ugu horeysa waayo waxan aad faafinaysa hadaadan garanayn maxaad u faafinaysaa dadka hadaba sifooyinka aynu soo tilmaamnay waxa looga baahan yahay qof kastoo muslina inuu ku sifaysnaado markan dacwada faafinaya seen dadka ugu faafiya halkeen ka bilaaba marka ugu horeysa doonaysa in aad qof khayr u sheegtid ugu horeyn alla tala saaro ilaahay kaalmo ka dalab ilaahay inuu ku fududeeyo dacwo ilaahay ka bari niyadaaduna yeenan ahaan inaad qofka iska dhaadhicisid ama hama adduunyo iyo waxyaalo kale iyo isjeclaysi iyo niyadaada ku jiran dar alla qofkan ugu dhaqaaq niyadaadana ka dhig in qofka alle sababtaada ku sahlo marka doonaysid hadaba qof inaad khayr u sheegtid ugu horeyn fikir waxaad ka fikirtaa dariiqooyinka ugu wanaagsan qofkan aad khayrka ugu gudbin kartid qofkani muxuu jecel yahay hadiyadahu aad u jecel soo qaad cajalad ay ku duuban tahay maxaadiro waxaad doonaysaa qofkan inaad kaga hadashid inuu iska daayo sinada waxaad doonaysaa inaad kala hadashid heesaha inuu iska daayo soo qaad cajalada ugu soo duub maxaadirada u hadiye wax lagaaga baahan yahay inaad ogaatid waqtiga ugu munaasibsan ee qofkan khayrka u sheegi kartid waayo waqtiyada qofka bilaadanki misaajkiisa iyo maskaxdiisu ma degna marbu xanaaqsan yahay marbu murugaysan yahay marbu hami adduunyo ka fikiraya marka ugu horeysay qofka u timaadid ha ku bilaabin alla kac salaadi way gaadhay may deji qofka marka hore qofka deji si fiican khayr ugu sheeg wanaaji la hadal ka waraysa xaaladiisa maanta kadib u sheeg adigoo si degan ugu sheegay waxaad rabtid inaad u sheegtid ugu dambeyntii walaalkayga qaaliga ah markaad u sheegaysid walaalka khayr hadalka kelmadaha ugu macaan ugu sheeg ha kelmadaha ugu fiican yani kelmadaha ugu macaan walaal huuno yani walaalkayga qaaliga ah maanta waxaan doonayaa inaan ku sheego hadal walaalkayo hadalada macaan arinkaana waxaanu ka baranaynaa nabiyina ibraahim alayhi salaam markuu aabihii dacwada ugu yeedhay muxuu ku lahaa yaa abati laa tacbud ash-shaytaan inna ash-shaytaana kaana lirrahmaani casiya yaa abati innii akhaafu an yamasak waka yaa abati daasoo haya aabihii oo gaala ayuu haddana marnaba sanka musuulin inuu aabihii ugu yeedho magaca aabanimo marka walaalkayga qaaliga ah qof walba markaad ugu yeedhaysid khayrka iyo wanaaga magaca iyo maamuuska uu leeyahay qofka waa inaad u sugtaa macalinkaaga macalin aabbaha aabba macalin hooyada hooyooy walaalkayga qaaliga ah hadalada macaan baro hadalada macaan ugu yeedh markaa dadka ugu dambeyntii walaalkayga qaaliga ah walaalka u sii faafi khayrka markastana gaarsi channelkana ha ilaawin inaad subscribe xagga hoosena nooga tagtid wixii faala ah